guddida nabadgelyada gobolka Sanaag oo howlo nabadgelyo baryahanba ka waday bariga galbeedka iyo koonfurta gobolka Sanaag ayaa degmada Ceeriyaan ee koonfurta degmada Ceergaabo kula kulmay dad yar oo iyagu isugu soo barakacay ka amay aaga tuulada Ceeriyaan ka samaysteen isla markaasina aan haysan waxay jidin ka mariyaan iyo waxay dhaxanta ka wadaan toona ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dadkan tan yarta ee iyagu halkaasi isugu soo barakacay ya halka waxaan u nimid tuulada nagu dhow waxa jooga baanu iska agjoogni marax meedii maadeen hay'adaha waxba nama siin hay'adaha waxba siiyeen hay'adu mada cidba ma jeedin kuba iman cidina halka intaan joogno ya halka waxa idinku siiya inta joogteen intaan joogno kaga magaalada jooga ya carab ilaah baanu ku cunaa imsana halka nagu soo xiraysay baxaha arkaysa xoolalaan abaartii oo saano jawanaga baxaha ka jiro alla raxlo areena ma jiro gaadiidkii baan noogu dadkan xoolihii way ka dhamaadeen geel waa ka dhamaaday dabeero iyo awr waa ka dhamaadeen waxa weeye dad sano aan la haysan waxay yimaadeen meesha yaalin inta aragtaan xiriirka ka xigtana laba tanago aan iska ururnay baan ku soo qaadnay gaari aan u helay ka waxaanu leenahay dawladda hay'adahan cidii kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba maray mas-uuliyiinta guddida nabadgelyada gobolka Sanaag oo xukuumadda iyo hay'adaha samafalkaba ugu baaqay in gurmad degdeg lala soo gaadho dadkan tan yarta iyagu isugu soo barakacay deegaanka Ceeriyaan lama dhiciyo ka reer halka yaal warbixintii madaxda Ceeriyaan baa ay daaqabta haddana waxa weeye marka war la helaa tala la helaa ilaahay baynu tala saarnaa dawladdiina dawatan waxa gargaar ilaahay baynu doonaynaa iyo mid dawladdaaba wixii laga helo diyaar baanu idinahay dawladda Soomaaliland cid kastoo istaagay dadka aragtay hawgaal ahaan uma aanan ahayn run ahaantii haddaan nahay heer gobol aanan ahayn hawgaal waxaa taa hakraday dadkii waayeelka halkan u ahaa Ceergaabo waxaan leenahay si degdeg ah emergency waa la inagu ciqaabaya dadku inuu meelana dee la iskaga daba celiyo raashinkii iyo caawimadii meelana aan lagaba warhayn oo aan maartay lagu turunturoodo waa dhibaato weyn runtii waxaan leenahay Ceeriyaan si degdeg ah loola soo gaadho hay'adaha waxaan leenahay barasaabku waa maraya guddiga nabadgelyada gobolka oo dhan baan nahay sida ugu dhaqso badan dadka waa in wax loola soo gaadho oo maartay waa dadka ugu mudan ee gobolka ugu baahida badan leh waxa weeye waa Ceeriyaan sida uu taliyaashu ay sheegeen ciidamadu hawl nabadgelyo aan u soconay haddii aan u soconay oo yaani arrimo kala ah markaan meesha aragnayna aad baan uga xunnahay insha Allah biidbillaahi waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay'adaha ka howlgala gobolka inay sida ugu dhaqsaabo degdeg maanta iyo berri ay yimaadaan asasbanka ay ka qaadaan wixii la helana aynu insha Allah loo soo dedejiyo hadda la ka dhigo haddana xukuumadda nahayna insha Allah wixii awoodeedu ay tahay waxba la hakran mayno barxad maxamuud geedi bulsha TV wararka gobolka Sanaag